haddii aad ogaan jirtay in quwadaha adduunka ay isku dagaali jireen ama ay isku qabsan jireen xuduudaha badaha iyo dhulka maanta arintaasi waa la iskala tagay oo Mareykanka waxa uu shaki badan uu ka qaba wadanka Shiinaha isagoo Mareykanka Shiinaha kaga shakisan in Shiinaha uu doonayo in dhul kamida dayaxa uu doonayo inuu ku darsado wadankiisa Shiinaha madaxa ama hogaamiyaha NASA ayaa walaac badan wuxuu ka muujiyay arinkaasi isagoo markaasi sheegay in Shiinaha uu qorsheynayo in dhul kamida dayaxa uu ku darsan doono dhul weynihiisa shucuubta Shiinaha waraysi uu bixiyay madaxa hay'adda NASA Bill Nelson ayaa waxa uu sheegay in isaga iyo saynisyahano kale ay qabaan fikirkaasi ah in Shiinaha uu qorsheynayo in uu qaato dhulkaasi qayb kamida dayaxa shakada cajiibka ah ayaa waxay tahay in madaxa NASA lagu magacaabo Nelson uu walaac badan uu ka muujiyay haddii uu Shiinaha uu tago dayaxa in Shiinaha uu markaasi uu xiran doono isla markaana uu qabsan doono qaybo badan oo kamid ah dhulka dayaxa oo kheyraad badan ay ceegaagaan isla markaana taasina ay dhibaato badan ay ku keeni doonto Mareykanka iyo dalalka kale oo markaasi iyagana doonayay in qaybo badan oo dayaxa iyagana ay degaan wuxuuna sii leeyahay sarkaalkan wuxuu aaminsan yahay in Shiinaha uu xumaan badan oo ku sameyn karo dayaxa dushiisa taasna waxay keeni doontaa ayuu leeyahay isku dhacyo badan oo xagga hawada sare ah walaaca ugu badan ayaa waxa uu yimid kadib markii 3 cirbixiyeeno oo dalkaasi Shiinaha u dhashay muddo 6 bilood ah ay ku maqnaayeen dayaxa dushiisa kuwaas oo qayb ka ahaa furitaanka ama dhismaha cusub ee xarunta Shiinaha uu doonayo inuu ka furto dayaxa dushiisa Mareykanka ayaana wuxuu shakiga ugu badan uu ka qabaa in Shiinaha uu isla markaa qorsheynayo in dhul badan oo kamid ah dayaxa oo kheyraad badan uu ceegaago waa sida ay uu sheegayo madaxa NASA Bill Nelson uu leeyahay wuxuu doonayaa in Shiinaha uu qabsado dhulkaasi kadibna uu Mareykanka iyo dalalka kale oo u diido inay soo caga dhigtaan taasna waxay keeni kartaa ayuu leeyahay in isku dhacyo xagga hawada sare ah ay sabab u noqoto oo dagaal xagga hawada sare ah uu bilowdo sanadaha soo socda madaxa hay'adda NASA ayaa waraysi waxa uu siiyay wargeyska lagu magacaabo Politico wuxuuna sheegay in Shiinaha uu qorsheynayo dhawaan in dayaxa dushiisa uu tagayo isla markaana uu doonayo qaybo badan oo dhulka dayaxa kamid ah uu doonayo inuu ku darsado dhul weynihiisa shucuubta Shiinaha taasna waxay keeni kartaa ayuu leeyahay in Mareykanka iyo dalalka kale ay dhulkaasi laga soo eriyo oo Shiinaha isku dayo inuu xoog ku qaato isla markaana u diido in wadamada kale ee dayaxa dushiisa ay ku soo dagaan waxaana jirta ayuu leeyahay xaqiiqdii tartan xagga hawada sare waxa sidaas yiri Bill Nelson oo magacaabay madaxweynaha Mareykanka Joe Biden sanadkii 2021 waa run ayuu leeyahay waan la soconaa qorshaha in Shiinaha uu doonayo in uu cilmi baaris uu ku gambanayo inuu ku tago dayaxa laakiin qorshihiisa dhabta waxay tahay inuu xirto qaybo badan oo dayaxa kamid ah isla markaana uu qorsheynayo inuu u diido wadamada dayaxa isaga kaga horeeyay inay dayaxa soo caga dhigtaan taasna ma dhici doonto ayuu leeyahay waxaan isku dayi doonaa inaan ka hortagno laakiin Shiinaha isagana waa uu ka jawaabay arinta sarkaalkaasi Shiinaha waa uu beeniyay wuxuuna sheegay in dayaxa ay u tageen cilmi baaris iyo arimo kale aysan dayaxa ka lahayn inay sheegtaan dhulka dayaxa qaybo badan oo kamid ah haddaba waxa laga yaabaa inaad la yaabto maanta adduunka wuxuu marayaa in dayaxa la kala boobo waa sida iyaga isaga shakisan yihiin inagana wali waxaynu taaganahay meeshii aan 30 sano aynu taagnayn ka hor oo ah qoladan inaga ay naga mid yihiin qoladaasna idinka ay ka mid yihiin oo rasaas la isla dhaco adduunku la iskuma warhayo laakiin cilmiga ayaa la isdheeriyahay